ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebel uu dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantahay iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebel uu dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyne ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go'ay innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunya muxuu ka tegey caalamka samada dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey innagu markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go'ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegee lahaa maydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba'an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku waddaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo insaga un baanan maqlayn hadday labadaa la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdilaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qusquslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi laddaat la shaqalakum camaa araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay